xasan cabdi xuseen cabdulaahi oo ah aqoon-yahan muwaadin u taagan qabashada xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed waxaana gudaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyaro siyaasiyiin odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa hadallo soo dhaweyntiisa ku aadan goobta ka jeediyay qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa. Assalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Kullay ninkan oday u nahay Xasan Cabdi haddana waa soo dhaweynay horeen waa u soo dhaweynay horeen waa ugu ballan qaadnay haddana saa ugu ballan qaadnay way maxaa yeelay qofka ugu wanaagsan u dooranay way in aan tookadan ka dhigno xildhibaanka federaalka noo joogayo insha Allah markaan fiirinay waxtarkiisii waxqabadkiisii dadnimadiisii kartidiisii waxaan ku tashanay go'aan aan ku gaarnay Xasan Cabdi inuu noqdo markaan xildhibaanka federaalka inoo joogo oo ka baxayo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo. waxaa farxad noo ah maanta inaan soo dhaweyno walaalkeena Xasan Cabdi Xuseen Dr. Xasey oo aan galaasmeed ahayn oo aan aqaano kartidiisii dadnimadiisa waxaan ku soo dhaweynaynaa magaaladii uu ku dhashay musharax dowladda federaalka xildhibaan u ah aad baan ugu faraxsanahay in mar labaad aan aragno walaalkeen oo beeshiisa ay soo sharxatay waa soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa wax kasta oo loo baahdo sababtoo ah waa nin u qalma waqtigaana ka bixi kara hawsha jirta oo wadankana samata bixin kara beeshiisana wax u qaban kara. maanta waxaan ku faraxsanahay soo dhaweynta xildhibaan Dr. Xasan Cabdi Xuseen Xasey waa arin aad aan ku soo dhaweynayna asaga oo aad qiiradayna ay u kacsan tahay waa xildhibaanka kaliya xildhibaanada ka soo bixi doona Koonfur Galbeed inuu noqon doono xildhibaanka ugu tayada badan. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaalkaanaga ama saaxiibkaanaga Xasan Cabdi Xasan oo xildhibaan ah ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in uu Ilaahay khayr ku waafajiyo. Samadoon Cabdulaahi Cabdi samadoonka beesha dirgaadsan ayaa sidoo kale soo dhaweeyay rabitaanka xildhibaannimo ee Dr. Xasan misna soo dhaweeyay. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta aan soo dhaweynayno musharax Xasan Cabdi Xuseen Cabdulaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan odayaashiisii nahay insha Allah taala Ilaahay waxaan ka tuugaynaa in uu Soomaaliya oo dhan wax u taro xildhibaannimadiisa anaga qoys uma rabno xildhibaan Soomaaliyeed baan ka rabnaa marka ka bacdi qoys loo dago marka guushana Ilaahay inuu waafajiyo waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa baahi badan baan u qabnay. Xasan Cabdi Xuseen oo xilligan ah musharax u taagan qabashada xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhigiisa aad ugu mahad celiyay bulshada sida diiran ugu soo dhaweysay magaalada Baydhabo kana hadlay ujeedka rabitaankiisa ee ku aadan ka mid noqoshada kuraasta baarlamaanka ee Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan dib ugu soo laabto meeshii aan ku dhashay oo ku barbaaray oo magaaladeeda ah Baydhabo oo aan aad ugu xiisay waxaana aad mahad ugu celinayaa dadka walaalahay ah oo sida sharafta leh ii soo dhaweeyay anigoo u kala saaraya dadkii aniga imtalay ee ugaasideeda ahaa iyo saaxiibaday classmate-kayga oo ilaa iyo primary school ilaa iyo high school waxaan sheego maanta garan maayo farxadda aad iiga badatay anoo dhan baa emotional ah hadda reer Baydhabo kooyheen wali isin in ballan qaadeen inii uu fidana la siin ku fadee macnaha se marka sheekaysadaano saaba inas qaadane fadhigan yar marka sheekaysadaano beledkay waaye hadda dhaxgale Maxamed Deeqsiir Jito RTN TV Baydhabo.